بسم الله مركوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا اللباد حدانو نهي بهدا قرندون وحانو هلكن إذن كسو قدبنينا برنامج كسابسن هوينكينا سوماليات فائدوينك أي أهيان بلشدينا كدب مركي آنو سميني باريتان ogaanayna inaan xaqi ay lahaayeen iyo ixtiraamkii ay mudnaayeen aan la marin ayaan waxaan go'aansanay inaanu soo deeno barnaamijkan wuxuu ku bilaabmayaa sida tan haween la'aani waa hoy la'aan waa mahmaha dheer oo Soomaalidu tiraado haweenku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha Ilaahay adduunkan uga dhigay qurux farxad deganaansho iyo liibaanta adduunka haweenka la'aantii dhadhan ma samaynayso adduunku haddaba ragow haweenku waa nolosheena ee nooleeya waa farxadeena ee farxad geliya waa hoygeena ee hagaajiya haweenku marka ay dareenkooda u muujinayaan qof ay jecel yihiin ilmo ay ugu muujiyaan haweenku iyada oo daalan bay adiga ku adeegay iyada oo murugaysan bay farxadaada doonay iyada oo hurdala ayay farxadaada ka shaqaynay haweenku mar walba waxay kaaga baahan tahay inaad ula ciyaartid ula dhaqantid sida ilmo caruur ah da'kasto ay jirto haweenka qalbigoodu waa dabacsan yahay wuxuuna noqon hadba sida aad adigu ka dhigto haddaad barto dabacsanaan way ku dabaci haddaad barto kulaylna way ku shidi hadba sidaad u noqoto way kugu noqon haweenku waxaa laga abuuray qayb adiga kaamida u dhaqaale una roonow sidaad ugu roon tahay naftaada haweenku waxay korin karaan ilmo bilaa aabe ah laakiin way kugu adag tahay inaad koriso ragow ilmo bilaa hooyo ah sidaa darteed haweenku way kaa dulqaad badan yihiin kaa samir badan yihiin ee haw isticmaalin sidii addoon aad leedahay adigu haween wanaageedu waxaa kuugu filan caddayn hooyada oo waxay kuu qabatay iyo naxariista ay kuu hayso qalbigeeda aan la soo koobi karin dumarna dhammaantood waa hooyo oo kale ha noqoto xaaskaaga walaasha ama dhammaan haweenka kale ee adduunka ku nool haweenku waa hoyga nin aan hoy haysan waa farxadda aadamaha dhammaantii waa ubaxa ay ku raaxaystaan indhaheennu waa iftiinka uu ku dhaqaaqo qalbigeennu waa gacmaha aynu wax ku goosanno waa furaha himiladeenna waa taageeraha rumaynta riyooyinkeenna haweenka la'aantood waa habeen gudura waa aabbaha niyadjabka waa furaha murugada waa albaabkeeda diilala'aanta haweenku waa jaamacadda uu ka soo baxo haliyey kasta oo adduunka wax ka beddelay geesi kasta oo lagu dabagabado abwaan kasta oo murti laga dhaxlo macallin kasta oo madax bara sheekh walba oo cilmi laga faa'iido haween gurigeeda waa loo hagaajaa ha u bahdilin asaageed adiga oo kaashanaya tamartaada una hagarbax hana jebin niyaddooda ku habdaacadnimo waxay kuu noqon hayine ha maagin ha hiifin ha hagardaamin ma xamili kara qalbigoodu dhibaato adigoo adoo xumeeyey bay xalaal ku ahaan adoo dhibay bay kuu dhowrsanaan adoo hilmaamay bay kuu hagaajisaa adoo dulmiyey bay kuu daaco tahay haweenka ina ragow ha la ixtiraamo oo ha la qadariyo oo ha la ogaado macnaha ay bulshada ugu fadhiyaan wax ha la baro ha la koolkooliyo oo xumaan uma qalmaane ha laga ilaaliyo haween nin yaqaana ma hilmaamo haween nin yaqaana ma hagardaamiyo haween nin yaqaana ma haraatiyo haween nin yaqaan ma habsaamiyo haween nin yaqaana ma hoojiyo haween nin yaqaana waa hagaajiya haween nin yaqaana waa habeeya haween nin yaqaana waa u hagarbaxa haween nin yaqaana waa u heeliya haween nin yaqaana waa u hoynowda haween ma dulmiyo ilaa dabaal mooye uma heeliyo ilaa haliyey mooye uma hagarbaxo ilaa nin fiican mooyaane haweenku waa hoygeenna ee ha la hagaajiyo Soomaalidu waxay tiraahdaa nin ragi waa ninka ragna u raga haweenna u dumara mahmaha carabeed waxay leedahay waraa'a kullu rajulin 'aziim imra'a nin kastoo weyn oo haliyey kan oday adduunkan hooyaa ka dambaysa
ee ha la hagaajiyo. waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga Soomaaliyay haween la'aani waa hiil la'aan, haween la'aani waa hoy la'aan, haween la'aani waa hooyo la'aan ee ha la hagaajiyo. ballanteenu waa inaynu ilaalino haweenka, dhowro xaqooda, u naxariisano, qalbigooda ilaalino, dhibaato oo dhan ka ilaalino, waa naxariisteena u naxariisano. wabillahi at-tawfiiq.